waxaa soo kordhay 44 xaaladood oo covid positive ah wadankeena waxaa lab ah 35 waxaa dhadig ah 9 55 boqolleyba kamid ah dadka laga helay da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 ilaa iyo 30 sano halka 33 boqolkiiba ay jiraan 40 ilaa iyo 59 sano 40 xaaladood waxaa laga helay gobolka Banaadir 4 xaaladood waxaa laga helay Puntland tirada guud ee dadka laga helay waxay gaaraysaa isugu tagaysaa 480 saddex qof ayaa u dhimatay tirada guud ee dhimashadana waxay noqonaysaa 26 Allah u naxariisto 4 qof ayaa ka bogsaday tirada guud ee bogsatay waxay noqonaysaa 14 intii dhimatay Allah u naxariisto waxaan ku talinaynaa mar walba in laga taxadaro in la xakameeyo cudurka la kala dhowrsado meelaha ciriiriga aan la tagin faraha la dhaqdo dadka waayeelada xanuunada raaga qaba si il gaar ah loo xanaaneeyo meel gooni lagu xanaaneeyo aanan loo u dhawaanin dadka jiran qofkii calaamadaha iska hela inuu soo wacdo nambarada loogu talagalay goboladoo dhan in ay wacdaan si tala loo siiyo waxaan ka codsanaynaa oo ku celcelinaynaa mar walba isbitaalada private-ka ah fadlan haddii aad haysan dad aad uga shakisaan cudurka goor hore na soo ogeysiiya qofka mar uu gaaro heer uu yacni uu gabagaba sii yahay noloshiisa ayaa la keenaa mararka qaarkood dad badan ayaana ku geeriyooda isbitaalka iyadoo markii la keenay intaan xitaa mararka qaarkood aan loo samaynin testiga covid-19 waxaa jiray Allah u naxariistay dad la keenay laakiin markii la baaray cudurkina aan qabin marka guud ahaan wacyigelinta aan ku wada dadaalno guryaha la isku celiyo cudurka aad u fidaaya waxaad ka garanaysaan isbuuci dhawaa iyo maanta meesha uu kala maraayo cudurka wax jira dad kala ma sooca qof walba ku dhici kara fadlan aan iska kaashano sidii looga hortagi lahaa cudurka sidii loo xakameyn lahaa qofkii la arkay inuu calaamadaha qaba soo raadsado in uu soo doonto ma aragta adeeg caafimaad nambarada uu soo wacdo lala taliya marka intaas Ilaahay na waafajiyo nabad iyo caafimaad insha Allah ta'ala